habeen jabigiisu degan yahay ee markaa cariga magaalada Laguna Niguel haweeney 72 jir ah ayaa ku seexatay fadhigeeda iyadoo TV daawanaysa. Waxay ahayd habeen caadi ah, laakiin saacado yar kadib qof ayaa si aamusnaan ah uga soo galay albaabka dambe ee gurigeeda isagoo wata faas. Qofkaas ma ahayn tuug shisheeye ah, mana ahayn dambiile khatar ah. Wuxuu ahaa wiil 15 jir ah oo deriskeeda ahaa, wiil ee iyadu dhawaan cafisay. Sheekadan waa mid ka mid ah kiisaskii dil ee ugu murugada badnaa ee ka dhacay California. Balse daawadinta sheekada aan hore u gelin ka hor wax ka xasuusanaa inaad muuqaalkan like saartid, haddana ugu cusubtaa nagu soo biir oo subscribe saar, laba qofna muuqaalkan si gaarsiiyay. Haddaba sheekadan waxay ku bilaabanaysaa sanadkii 2004. Haweeney lagu magacaabo Jane Thompson ayaa ku nooleed nolol degan oo howlgab ah. Jane hore waxay ugu shaqayn jirtay Hollywoodka magaalada Los Angeles, halkaas oo ay ka ahayd soo saare iyo kaaliye dadka caanka ah. Kadib markii ay howlgab noqotay oo shaqadii ay ka fadhiisatay, waxay u guurtay Laguna Niguel oo ah meel aad u degan oo qurux badan oo ku dhow markaa badda. Deriskeedu aad bay u jeclaayeen. Jane waxay ahayd qof degan, naxariis badan oo mar walba dadka caawiya. Jane sidoo kale waxay lahayd saaxiibad jacayl oo la oran jiray Marian Rizzi oo ku nooleed Los Angeles. Jane waxay lahayd deris dhalinyaro ah oo la oran jiray Sam Nelson. Sam wuxuu ahaa wiil 15 jir ah oo mararka qaar dhibaatooyin sameeya. Dhowr maalmood ka hor dilka, Sam wuxuu jabsaday guriga Jane oo uu ka xaday dahab iyo lacag badan. Jane waxay ogaatay inuu asiga yahay, laakiin halkii ay boolis wici lahayd, Jane waxay sameysay wax aan caadi ahayn. Waxay siisay fursad labaad. Waxay ku tiri mar dambe ha sameynin. Sam wuu ka xishooday, laakiin sheekadu halkaas kuma dhammaan. Habeenkii 24 Juun 2004, Jane waxay cunto ku karsatay jikadeeda, kadib waxay ku seexatay fadhiga iyadoo TV daawanaysa. Dhanka kale, Sam Nelson wuxuu qorsheynayay inuu mar kale guriga jabsado. Wuxuu qaatay dube ama faas, wuxuuna gashaday galoofyo gacmaha, wuxuuna u soo socday guriga Jane habeenkii. Markii uu albaabka dambe isku dayay in uu jabiyo, wuxuu ogaaday in uu furan yahay. Sam si tartiib ah ayuu gudaha u galay. Jane weli waxay ku seexatay, ay ku jiiftay fadhigeeda. Laakiin markii Sam uu soo galay, Jane indhaha ayay kala furtay. Hal ilbiriqsi oo cabsi ah ayaa dhacday. Kadibna Sam wuxuu madaxa kaga dhuftay faaskii hal mar, kadibna mar kale ilaa Jane ay halkaas ku geeriyootay. Runtii waa dhacdo argagaxleeda wadata. Haddii ka waran deriskaada adiga uu ku beegsanayo ama uu ku ugaarsanayo, marna uu lacag ka dhacayo, marna adiga naftaada oo u soo dhiganayo. Waa halis. 3 maalmood kadib, saaxiibteeda Mary Larkin ayaa walwalaysa sababtoo ah Jane kama jawaabin telefoonada maadaama ay dhowr jeer soo wacday. Markay guriga tageen, waxay arkeen albaabka dambe oo furan. Booliska ayaa la wacay. Daawada isweydiinaysa sababta booliska la wacay ee guriga hore u gali waayeen. Dabcan dadka halkaas jooga ama dibadda markii la fiiriyo, fal hadduu dhaco gacanta lama galo, waxaa la wacaa booliska. Booliska ayay waceen. Markii ay gudaha galeen, booliskii waxay heleen Jane oo dhiig badan ku hareeraysan yahay. Dabcan waa 3 maalin qof meel yaalay oo faash lagu baabi'iyo, dhiig ku hareeraysan yahay. Baaritaano badan ayaa la sameeyay. Baariyaal mid ka mid ah wuxuu ahaa Daniel Salcedo oo ah markaa saaxiibteed. Booliska markii ay hubiyeen telefoonka Jane, waxay ogaadeen wax muhiim ah oo aad muhiim u ah. Shirkadda credit cardkeeda ayaa wacisay sababtoo ah waxaa jiray lacag si sharci darro ah loo isticmaalay. Mid ka mid ah lacagahaas waxaa lagu bixiyay oo wax loogu iibsaday maqaayad. Booliska markii ay tageen maqaayadda, maamulihii wuxuu sawirka ka aqoonsaday qofkii isticmaalay. Qofkaasna wuxuu ahaa Sam Nelson. Sam Nelson waa la qabtay, waxaana lagu xukumay 25 sano ilaa xabsi daa'in. Sababta uu lacagta u xadayay ama dahabka u xadayay maxay ahayd? Wuxuu rabay inuu lacagta u isticmaalo si uu ugu muuqdo qof qani ah saaxiibadiisa dhanka iskuulka. Laakiin ugu dambeyn, tuugnimo yar ayaa isku bedeshay dil naxdin leh. Waxa ugu murugada badan sheekadan waa hal xaqiiqo.
Jane waxay siisay Sam fursad labaad, laakiin qofkii ay cafisay isaga ayaa noqday qofkii nolosheeda dhameeyay. Haddii aad jeceshahay sheekooyinka dambiyada runta ah ee caalamka, hubi inaad like saarto muuqaalkan, subscribe samee sidoo kaleeto, kana tag fikirkaaga qaybta hoose commentiga. Sababtoo ah toddobaad kasta waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekooyin dhab ah oo cabsi leh.